saaxiibada qaaliga ee ku xiran journalka Gudon Graphic ku soo dhawow muuqaal cusub. waxaan ku faa'iideynayaa 5 waxyaabood oo Photoshop aad kaga faa'iideysan karto. Ugu horeyn 5 waxyaalood waxa ugu horeeya halkan waxa yaala 3 file ayaa ka furan Photoshop gudaheeda. Sidaa darteed maadaama ay 3 file ka furan tahay waxaan rabnaa si manual oo degdeg ah inagoo faylasheena dhammaan wada fiirinayna inaan isu marno. Marka intan mouse-ka dhaqaajin lahaa marna kan aad tagi lahaa marna aan ka tagi lahaa waxaan rabaa inaan kulligood hal mar si kan u baahdaba aan si degdeg u tago. Marka waxaan qabanayaa control tab ayaan leeyahay. Control tab wuxuu geenayaa file allaal file-kan u baahdo ayuu si degdeg ii geena. Marka mashruucyo waaweyn diyaarinayso oo kale arabta inaad mid walba si degdeg u tagto meeshaad gacanta ku mashquul lahayd mouse-ka ayaad waxaad leedahay control tab si degdeg ayuu wuxuu ku geenayaa ma garanaysaa mashruuca gudihiisii. marka arabtay inaad faylal badan ka wada shaqaysid Photoshop dhexdeeda mara mashruuc ku qabsanaya marka si degdeg ah marka arabtay inaad u tagtid waa inaad control tab isticmaasho si aad u tagto si degdeg ah. qaybta labaad oo aan rabo inaan kaaga faa'iideeyo waxay tahay waxaan rabnaa inaan meeshaan sawirka ka muuqdo mootada meesha ka muuqdo inaan si nadiif ah u goyno dhammaanteed hal mar aan si degdeg ah u jarno. sida wada ogsoonahay versionka Photoshop ee 2020 waxay ku soo dartay toolka la yiraahdo quick selection ayaa waxa lagu soo daray object selection tool ayaa lagu soo daray sanadkan. marka wuxuu kuu fududeeyaa inaad si degdeg ah u goysid wax alla la xarabtay inaad jartid inaad si degdeg ah u goysid. Okay, geeskaas ayaad kaga qabanaysaa kadibna hoos ayaad ugu jiidaysaa markaad halkaa marinaysa ayaa sii daynaysaa. marka tiidaysa asaga shaqaynaya oo sidii midabada isku ego dhan dhammaan waxa ujeedaa halkan hadii aan ku soo dhaweeyo dhammaan waxa ujeedaa mootadan geesaheeda dhan in la calaamadiyay oo xidka yar ay yaacayaan ama highlightkaas uu soo yaacayo. marka sidaa darteed marka rabtay inaad si degdeg ah u goyso ama background-ka uga bedesho waa ku go'ay haddaan halkan tago waan qaadi karaa mootadii bas taas waa ay qaadmaysaa. mootadii kaliya qaadaya waxa meesha uga tagay waa background-kii. sanadkan waxa lagu soo daray marka control D aan dhaho control 3 kadibna control D si aan highlight-ka ugu qaado. sanadkan marka waxay ku soo daray shirkadu toolkaas la yiraahdo waxay ku soo daray waxa la yiraahdaa object selection tool ay meeshan hore u isticmaali jirnay marka wax jarayna tusaale kii hore aan wax ku jiri jirnay waxa asaan camal waa calaamadinaysaa inta isku eego ayaad maanta dhan hawl ayaad ka maraysaa laakiin asagu dhammaan wax isku eeg ayuu si degdeg ah u goynaya. marka taasina waa taa mid kale oo aan rabnaa waxay tahay sidoo kale caadi qof xataa waa ku jari kartaa hadii qof sawirkiisa qurxi sidoo kale oo ku qabsato qofkan geeska ilaa geeska ku qabanaya saana hoos ugu jiiday ilaa hoos marka geeska sii deynay inta qofka ayuu ku calaamadinaya bas waka inta qofka ayaa hadda calaamad ku saaran tahay sawirkan qofka haddaan selection tool tago qofka kaliya ayaa qaadan karaa meeshan raba la aadaya. marka taasina waa taas tan kale raba inaan kaaga faa'iideeyo waxay tahay waxa halkan yaala ellipse tool oo shape-ka ellipse tool oo ilaa 1 2 3 4 5 6 xabo taala waxa rabaa inaan 6daas xabo aan ka dhigo hal layer maadaama halkan ay yaalin 7 layer oo ku jira background-ka inaan kuwan hal layer isaga dhigaan rabaa. marka waxaan samaynayaa dhammaantood shift ayaan qabanayaa dhammaantood selection ayaan saarayaa kadibna control E baan taabanaya hal layer ayaa laga dhigay kulligood soo maartay halkan isbedel ay imaadeen isbedelkan dhib male waa la xalin doonaa. marka control E iri dhammaantood waxay isku noqonayaan hal layer ay isku noqonayaan waa isla qaadmayaan waa kaas. tusaale ani waxaan kugu soo qaaday hadda isku darsamay laakiin waxaan kugu soo qaadayaa sidaa u kala fududaysan lahayd haddii aad mashruuc weyn diyaarinayso. السلام عليكم عشركني عاو انت درسيني ku kooban yahay hadii casharadan aad ka heshay Photoshop fadlan la wadaag walaalaha
waxyaalaha fahmi weysa nagu soo weydiiyey qaybta faahfaahinta ama descriptionka iyo sidoo kale whatsappka